faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dil saaka ka dhacay duleedka magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wararka ka imaanaya magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada hubeysan aroornimadii hore ee saaka ay dil ka geysteen halkaasi. Wararka ayaa waxay sidoo kale inta ku darayaan in maleeshiyadkan hubeysan duleedka magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ay ku dileen marxuum Cabdikaafi Jaamac oo kamid ahaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxaa lagu soo waramayaa in dilkani uu si gaar ahaaneed kaga dhacay deegaanka Dowdowle oo hoostaga magaalada Caabudwaaq ee gobolkaasi Galgaduud. Dhanka kale dad goobjoogyaal ayaa inoo xaqiijiyay in maleeshiyadkan hubeysan ay dileen Cabdikaafi Jaamac ayagoo sidoo kale sheegay in goobta ay isaga baxsadeen. Wararka ayaa waxay tibaaxayaan in dilkan uu salka ku hayo aanada qabiiliga iyo sidoo kale xiisado maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa deegaanada hoostaga gobolka Galgaduud ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug. Ciidamada ammaanka maamulka dowlad goboleedka Galmudug ayaana baaritaano ka sameeyay goobta uu ka dhacay dilkii loo geystay Allah u naxariistay marxuum Cabdikaafi Jaamac oo kamid ahaa dhalinyarada ku dhaqan duleedka magaalada Caabudwaaq ee gobolkaasi Galgaduud. Dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku guuldareystay deminta dagaal beeleedyada sidoo kale dilalka aanada qabiil taasi oo tusbax go'ay ka naqday deegaanada hoostaga maamulka dowlad goboleedka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee dilkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli shalay halkaasi sidaan oo kale loogu dilay aabada ah kaasi oo kamid ahaa aqoon-yahanada iyo sidoo kale odayaasha sida weyn looga yaqaanay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Muddooyinkii dambe deegaanada hoos yimaada maamulka dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku soo xoogeysanayay xiisadaha colaadeed iyo sidoo kale dilalka aanada qabiil taasi oo ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka dowlad goboleedka Galmudug aysan waxba ka qabanin.